Maxamed Siciid Cabdi Biike waa mid ka mid ah fanaaniintii aadka looga jeclaa saaxada fanka. Korintii aanu fanka ka faraxalan isla mar ahaantaasina waanu ka bixin. Waxa uu qaaday kumanaan iyo kumanaan heesa oo kala duwan, kuwaasi oo ku yimi siyaabo kala duwan ama qisooyin kala gedisan. Maxamed Biike waxay asxaab badan iyo taageerayaal kumanaana oo ku taageeraya fanka ay u aqoonsanayeen inuu ahaa boqorkii codka ee qasrigani haatan la joogo. Maxamed Cabdi Siciid Biike waxaa maragma doona inuu ka mid ahaa fanaaniintii sida weyn looga jeclaa kooxdii xidigaha geeska dhanka heesaha marka ay noqoto qaadistooda. Waxaana la tibaaxaa inuu Maxamed Cabdi Siciid Biike ku qaadi jiray heesaha dareen gooniya, kaasi oo guud ahaanba qalbaaga kale aan haddii aad ka mid ahay taageerayaashiisa inaad u aqoonsanayd kabtankii codka ee kooxda xidigaha geeska iyo mashiinkii kala waday kooxdaasi dhinaca fanka iyo heesaha. Maxamed Cabdi Siciid Biike keliya kuma aanu ekayn qaadista heesaha ay abwaanadu u dhiibaan ama se ay u sameeyaan, balse isaga laftigiisa ayaa tiraba dhowr heesood samaystay oo qaaday ereyadana lahaa, badankoodana laxanka saaray. Maxamed waxa uu sidoo kale ka mid ahaa bahda laxanleyda Soomaaliyeed. Si kastaba ha noqotee, abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo ka mid ahaa abwaaniintii kooxda xidigaha geeska isla mar ahaantaasina Maxamed Cabdi Siciid Biike uu ku jiray oo ay kooxda ka wada tirsanaayeen, haya waxa u dhiibay heesta Naruuro ee uu qaado Maxamed Biike. Heestani ayaa waxay tahay qiso ku dhacda mid ka mid a saaxiibada abwaanka heestani iskale isla mar ahaantaasina sameeyey. Maxamed haya waxa uu heestani ku soo gudbinayaa cod iyo dareen gaara, kaasi oo ruuxay qalbiyada shucuubta Soomaaliyeed iyo mucaashaqiintii fanka. Biike iyo waxay sideen dhambaal iyo weliba qiso weyn oo heestani xambaarsan tahay. Maxamed Biike ayaa gabagabadii isagu fanka ka baxay. Uma socono daawadayaal taasiya, balse waxaanu gudagalaynaa qisadan oo ku dhacday nin ka mid a asxaabta abwaanka isla mar ahaantaasina uu abwaanku ka sheekaynayo. Waxaana u dhacday sida tan: nin asxaabteeda ka mid iyo gabadh ayaa ilaa yaraannimadoodii ama ardaynimadoodii wada sheekaysanayay. Labadooda waxbarashadii soo dhammaystay, sanadba sanadka kale sii sogootay, maalmahuna socodka hakan waa. Wiilkii dadaal kuma yara, gabadhana samiir kuma yara, jacaylkuna inuu kordho mooye marnaba hoos uma dhaco. Bale waa tan dambaysay, gabadhii nin ayaa soo doonay aabaheedna inantii ku wargeliyay inuu hebeelkaasi siinayo. Odayga dhalay gabadha waa aabba si fiican inantiisa u soo koriyey oo kaalin geliyay. Gabadhuna waa waalid adeec, aabaheed ixtiraam aadna u jecel. Gabadhii oo tala ku caddaatay ayaa wiilkii ay jecleyd arrintii u bandhigtay. Halka arrin marayana u sheegtay gabadha uu jecel yahay, laakiin adduun uu maanta ku baajiyo oo inantaasi ugu geed fadhiisto ma haysto. Inuu masaafeeyo meelahaasi kusoo mehersadana waa u quuri waayo oo way kala qiimo badnaatay. Dabadeedna go-aaneed u qadhaadh ayaa uu intuu qaatay gabadhii ku yidhi, aabbaha ixtiraam oo inkaaraha ka shaqaysana tiisan u yeel. Gabadhii sidii lagu mehersaday, balse ninkii habeen kasta naftiisa ayaa maxkamad saartaa iyadoo leh haddaad sidaasi samayn lahayd, haddaad sidan kale wax odhan lahayd, haddaad iyo wax lamid a. Markuu sheekadu halkaasi ii marinaya ayaan intaan halkiisa isdhigay heestan sameeyey. Waana halkaa ay ka imanayso bilowga heesta naftayda waa halkaasi halka ay ka imanayso.